وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Soomaaliya waa Cabdirashiid Cali Sheekh Maxamed wey. Waxaan rabaa inaan ka faalloodo galabta inaan ka faalloodo sababka ay uga soo baxeen dowladda ciidamadeedii iyo maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland oo isku dhinaca oo ka dagaalamayay ayagii dowladdu isku hal dhinac markay marayaan camaara maxay uga soo baxeen oo gaalkacyo dhuusamareeb ugu soo noqdeen maxaana al-shabaabkii hadda u sii marahaya bacadweyn iyo camaara muxuu u qabsaday sababka looga soo baxay maxay tahay awalna la kugu sheegayay in la soo taabanayo oo la qabsanayo xarar dheere meeshii xarar dheere baan qabsanayna ay nagu lahaayeen ayay ka soo baxeen oo qaarna ku soo noqdeen gaalkacyo qaarna dhuusamareeb al-shabaabna waa soo dabagalay bacadweyn iyo wuxuu qabsaday iyo camaara ayaa qalabka warbaahinta oo Soomaalidu sheegaya muxuu yahay marka sababka markii hore meesha loogu daray ciidanka oo loo lahaa waxaa la soo qabanayaa meesha la yiraahdo xarar dheer maxaase looga soo baxay qodobkaas ayaan caawa rabaa inaan sharaxo idiin falanqeeyo waxaa saldhig u ah marka hadalkeenna caawa 3 aayad oo quraan ah qaala tacaala وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم وقال تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين 3 aayadood wey bal aayadda ugu horeysa aan idin tafsiira marka qaala tacaala ilaahay wuxuu leeyahay waaطicu llaha wa rasuulahu walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu in allaha maca saabiriin ilaahay wuxuu leeyahay rabbi iyo rasuulkiisa adeeca walaa tanaazacuu ha murminina haddaad murantaan maxaa dhacaya fatafshaluu waad fashilmaysaan haddaad fashilataanna maxaa dhacaya watadhaba riixukum xooggiinnii iyo caqligiinnii iyo cilmigiinnii iyo israacsanaantiinnii iyo muwaafaqadiinnii iyo kalsoonidiinnii ayaa kala tegaya si intaas u dhicin marka oo adina u kala tegin kalsoonidiinniina aad isku qabteen u dhumin adina u fashilmin adina u murmin wasbiru dulqaata marka intaasba waxaa xal u ah oo ilaahay ku daaweeyey 3daas qodob oo hore ilaahay wuxuu daawo kaga dhigay wasbiru dulqaata oo adkaysta in allaha maca saabiriin ilaahana dadka mataqaana ku samra wuxuu asagu faray inay sameeyaan wuxuu ka reebana ay ka haraan ayuu ilaahay la jiraa aayadda waxaan kala jeedaa say dowlad iyo maamul goboleedka mataqaana Galmudug iyo Puntland noogu hayeen al-shabaab baan la dirayna dalkan ka xoreynayna waxaan soo taabanaynaa meesha la dhaho magaceeda xarar dheere
ayaan waxaan ka war helnay ayagoo gaalkacyo dhuusamareeb kusoo noqday. taliye ku-xigeenkii xoogga dalka abaanduuli xoogga dalka jenaraal biixi ayaad arkayseen oo qodbaynayo dhahaya aniga haddaan ahay jenaraal biixi iyo ciidamadaydu waxaan dhowaan mar aan dheerayn waxaan soo taabanaynaa oo qabsanaynaa xarar dheere. waxaa la socday janankii taliyaha booliska ahaan jiray oo ahaa cabdi qaydiid oo ah senator ka tirsan golaha sare ee baarlamaanka. waxaa la socday oo ninka saddexaada wasiirka amniga oo galmudug muxuu ahaa axmed fiqi. waxaa la socday ninkii gobernatoraha ka ahaa gaalkacyo dhanka puntland maxaa la oran jiray ina muuse nuur cabdilatiif iyo maaqan waxa la dhahe aduu ina muuse nuur baa la dhahaa. waa ninka gaalkacyo puntland qaybta waqooyiga oo daaroodka ama puntlandi midka gobernatoraha u awey. waa kii dhihi jiray anigu masaajiyada iyo adinkooda iyo waa nibcah oo mataqaan shuqulku mali oo lahaa walaalkay al-shabaab walaalkay dili kii lahaa wey. waxaa la socday ninkii la oran jiray saadiq john oo jananka booliska ahaan jiray oo qoladii mataqaanaa anuu criminal gangiska anu aqaanay adunkuna u taqaaneen murashaxiinta madaxweyneyaasha inta ku biiray janankii laga jaray haddana soo noqday oo qoorqoor iyo la shaqaynayey iyo galmudug. intaas oo isku dhan baa waxay nagu lahaayeen waxaan soo taabanaynaa meesha la yidhaahdo xarar dheere ayaan dhowaan qabsanaynaa. mar dhow waxaan daawaday inay beri hore ahayd inay maanta ahayd garan maaye laakiin waxaan daawaday axmed fiqi iyo waxaas garab taagnaa ninkii puntland u qaabilsanaa gaalkacyo guddoomiye oo ahaa oo ina muuse nuur ahaa. ina muuse nuur baa wuxuu leeyahay haddaan puntland nahay 10 baabuur oo booyad ku jirto iyo maxaan ku rahdaa mid kale iyo kuwo kaloo mataqaana uu qori baron asaaran yahay iyo dhashiikayaal wax noocaasa ayaan ku wareejinaa galmudug oo wakiil ka yahay ninka la yiraahdo axmed fiqi wasiirka amniga. maanta ha ahaato ama markii dagaalka aabulahayeen dhowr bilood ka hor ha ahaatee nina waa puntlandi oo waa ina muuse nuur nina waa fiqi oo waa galmudug. fiqi wuxuu wakiil ka yahay ninka la yiraahdo qoorqoor oo madaxweynaha galmudug. ina muuse nuurna wuxuu wakiil ka yahay deni oo ah madaxweynaha puntland. labadaasa isla taagan marka waxay leeyihiin al-shabaab ayaan la diriraynaa. waayahay sawirkaas ayaan waxaan ka bixinaynaa xoogaa faallaha inuu maanta yahana waan ka soo qaadaynaa tusaale ahaan hadduu yahay hadduusa ahaynba. waxaa ka maqan ragga hadda idin tiriyey janankii aawe janankii biixi oo ciidamada xoogga dalka ku-xigeenka aawe sawirka wuu ka maqan nimanka lama taagna. waxaa ka maqan janankii asaguna cabdi qaydiid oo ahaa senatarka oo galmudug ka soo gala asna waa maqan yahay. waxaan meesha joogin asaguna ninkii ahaa saadiq john oo janankaa jiro janankii laga rifay. saddexdaas waa maqan yihiin. xaggee aadeen marka meeshay aadeen waxaa noo sheegahaya sababkay ciidanka uga soo saareen meesha wixii ka soo saarayba oo gaalkacyo ku soo noqday dhusmarab yiri awgood bay la maqan yihiin ayaguna. waa yahay hadda nama oran karaan khilaaf ma jiro sababtu haddaan khilaaf jirin maxaa taliyii xoogga abaanduulihii xoogga jenaraal biixi muxuu furuntii kaga soo baxay. maxaa jenaraal ninka la yiraahdo magaciisa muxuu ahaa cabdi qaydiid muxuu kaga soo baxay. saadiq john muxuu kaga soo baxay. maxaa furuntii hadda looga soo wada baxay oo kuwan hadda gaalkacyo u joogaan u leeyihiin gaalkacyan isku wareejinaa 10 tiknika ayaa anagu wareejinaya kana waa igala wareegaya oo al-shabaab baan weeraraynaa. al-shabaabna bacad weyn ay haystaan camaar ay haystaan hadda maantay oo bishu 29 ay tahay maalin axada ay tahay 21 agost inuu marka khilaaf jiro
annaga shacabka waa noo caddahay cid aan ka dhagaysayna khilaaf ma jirana ma jirto haddaba marka khilaafkaas yaa sal iyo aabbo u ah yay ku dhammaanaysaa khilaafka ninka wada oo ciidanka markii horena diray markaan dambena ka soo saaray meesha oo khilaafka aabba iyo hooyada u ah iyo saldhigga waa kuma si aan ninkaas u soo saarno ninkuu yahay waxaan tegaynaa markii ay lahaayeen jenaraal biix iyo raggii la taagnaa ayagoo gacmahays haysta waxaan joognaa Camaara maalmaha soo socdana oo aan dheerayna waxaan qabsanaynaa Xarar Dheere ayadoo arrintu halkaa taagan tahay ayaa safar waxaa bilaabay barnaamijka Maxamed Xuseen Roble safar wuxuu aaday Kenya wuxuu ka yiri dhexdeeda anigu 2021 musharax madaxweyne miih laakiin 2025 waa laga yaabaa wuu ka tagay haddana wuxuu tagay meesha la Masar haddana wuu soo noqdo waxaa la sheegay maalmahan khamiistii hore inuu u bixi lahaa Sacuudiga laakiin madaxweynaha warqad u qoray bay sheegeen idaacadaha iyo dhalinyarada Facebook iyo YouTube-ka Soomaalida ah safaaradda Kenya joogto oo Sacuudiga ayaa warqad u qoray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo oo uu leeyahay maamul goboleedyada adinka Sacuudiga hadaad qaabishaan aniga adinka isma naqaan laakiin prime ministerka iyo wasiirka arrimaha dibadda waad qaabili kartaan ama labadooda soo socda ama mid laakiin ma ogoli san Ethiopia uga diiday ma ogoli maamul goboleedyada inay dawlad qaabilaan oo dawlad u yeerato fiisa u dirto ma yeelayo marka ama dagaal u diyaar garooba ama nimanka faraha kala baxa safiirkii waa soo joobaa la yiri wuxuu ku yiri maamul goboleedyadii hal inaga ahaada prime ministerkan wuxuu ku yiri baa waa sida YouTube-ka ay sheegayaan dhalinyaradu adiga inaan ku casuno waa laga yaabaa laakiin hadda safarkii adiyo qoladan maamul goboleedyada waan kansalno waa joojino madaxweynahaaga baa diiday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa yahay prime ministerka hadda wali Sacuudi ma aadin asagii wasiirka arrimaha dibadda waa joogaan intaas oo dhacdo marka la isku daro oo safar ah oo kan ugu dambeeya idaacadu ay sheegayaan madaxweynuhu inuu kansalay halka waxaa kaaga cad marka khilaaf siyaasadeed oo ka dhaxeeya madaxweynaha prime ministerka inuu jiro asaguna markuu joogay Nairobi wuxuu noo sheegay oo noo mahmay annaga shacabka Soomaalida waa haduu yahay Maxamed Xuseen Roble prime ministerka Soomaaliya wuxuu yiri doqontu meeshii lagu diray ogeyd laakiin meeshii lagu heshiiyay ma ogeyn annaguna hadda waxaan ugu mahmaahaynaa sagaaradu salal arki doonay aasta ama sagaaradu saxaro la arki doonay aasta mahmaadaas baan ugu jawaabaynaa adinku haddaad ka xishootaan ama ka baqdaan Soomaaliyiin shacabka anaan kana xishoonay kana baqayn uuna iga mutaysta inaan ugu mahmaaho Maxamed Xuseen Roble mahmaadaas waa astaahila ficilkiisa iyo safarkiisa iyo meeshu hadda ku socdo dalka ku wado sagaara iyo wax ka liita inaan ugu mahmaaho wiiga astaahila anu warka qofna kama gabiyo dhowr jeerna eraygaas waa idinku iri Farmaajo had ogtiin in hadda taageero hadduu soo galo aniga diiradayda iyo shiishka hadduu soo galo kama leexiyo inaana ka leexina waa arki doontaanba anoo ku dhagan ilaahay inuu iskaayo tuso waxba lama aha anoo Farmaajo iska laalaadiyay oo anigu danaha iyo diinta iyo dalka iyo dadka qofan asxan ugu sameey iyo qofan ugu beerdulca midna malaha waxa weeye marka khilaafka ciidanka laga soo saaray asagoo ay leeyihiin waxaan qabsanaynaa meeshii la Xarar Dheere gaalkacyo dhulsano in lagu soo celiyo waxa ka dambeeyay Maxamed Xuseen Roble asaga aabbo iyo hooyo u ah asaga asal u ah way asaga marmarsiyuhu kasto oo wuxuu raba ha keeno waxa daliil u ah annagu Kenya meeshan kala joogna shacabka Soomaaliya qof walba ogyahay xataa geeltiraha annaga Soomaaliya baa la socda geeltiraha Soomaalida ayaa wuxuu ogyahay annaga iyo Kenya inaan dirsanay oo idaacad ba haysanin meel war ka soo gaaran ahaysan laakiin dadka waraysta baa ka warqaba Masar iyo Sacuudiga iyo nimanka Imaaraadka wax badan baa kaga sheekeeyay taariikhdooda ilaa 77 waa kan hadda Kenya tagay waa kan Sacuudiga mataqa Masar tagay waa kan Sacuudigana hadda madaxweynuhu ka kansalay waa kii Djibouti tagay iyo ninka annaga nagu lahaa Ismaaciil Cumar Geelle ciidamada Kenya tagay iyo kuwa mataqaanad Soomaalida oo mareexaanka u badan oo ku xareysnaa Mandera maana soo arkin wax ciidan ah oo ay Kenya taa kuleynayaan marka Soomaalida gardaran wixii ka dhacay Balxaw iyo Mandera
annagu markaan tagnay haddaan nahay nimankii jabuutiyaanka ahaa markaan tagnay madheera gudaheeda galnay oo aan soo aragnay soomaalida gardarana kenya gar ku fadhida ninkiina lahaabuu u tagaa oo caleemasaarkiisa ka qayb gala haddana wuxuu u tagaa nimanka la dhaho imaaraadka waa maxamed xuseen rooble ninka marka jabuuti iyo imaaraad oo hadda wararka ugu dambeeya idaacadda ka maqlaysaan 10,000 oo nimankii ahaa afghanistan oo 40 sano la dagaalamayay mataqaanaa sofiyeedkii iyo mataqaanaa ciidamadii NATO oo aad u tababaran waa nimanka 10,000 baan keenaynaa berbera iyo kasoo dejinaynaa Somaliland oo 10,000 baan keenaynaa qaxooti ah oo mataqaanaa ah Afghanistan waa nimanka barnaamijkaas Somaliland iyo Muuse Biixi ula tagay deedna madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiirka arrimaha dibadda ay ka kansaleen UN-ka iyo ninkii Orange Abu Karbaale uu kansalay UN-ka ka kansalay ayagoo raba inay dhahaan qaxootigaas annaga qaadayna haddaan nahay Dubai laakiin waxaan u sii gudbinaynaa 10,000 Soomaaliya maxay ka rabaan 10,000 ay keenayaan berbere iyo maxay ka rabaan iyo Hargeysa waxay ka rabaan waa dad tababaran macallimiin tababarta dad Soomaali ah oo daba dhilfiye ah oo jawaasiis ayagu qortaan sidii kuwii xamar laga tirtiray ayagu xorriyada u sameeyay oran jireen ciidan weey oo markaa shacabka Soomaali lagu laayo haba magac loo bixiyo haba shaati loo geliyo ayay kala jeedeen nimankii noocaas u tagaya Masar buu tagaya Sacuudi buu tagaya waa ninkaas marka ninka ka soo saaray ciidanka meesha General Biixi iyo General Cabdi Qaydiid iyo Saadiq John sababkay ku tageen waa sababkaas ninkii la yiri wadanka doorasho gaarsii wuxuu ku biiray qoladii criminal gangisku ku biiray Xasan Sheekh qoladii damul jadiid ala Sheekh Shariif qoladii kale oo mataqaan Jubbaland ka soo jeeday wuxuu ahaa hebelka Xuseen Xalna kii ogaadeen oo oran jiray wasiirka maaliyadda ahaan jiray Xasan Cali Khayre Cabdiraxmaan Cabdishakuur intoodii kale wax alla waxaad garanaysaan oo Al-Jazeera fadhin jiray qoladii Al-Jazeera ku biiray wiilkan waxaana wada oo gacan geliyay oo Al-Jazeera ku biiriyay Deni iyo Axmedoobe labadan daaroodka nimanka soo shukaamiyay oo soo shaxaaday oo asaga warka u keenay oo ka dhaadhiciyay oo Imaaraad iyo Kenya ku xiray oo barnaamijka inuu wixii ay Siciidani iyo Axmedoobe ay sheegaan uu ku shaqeeyo wiilka Maxamed Xuseen Roobla waxa keenay waa Deni iyo Axmedoobe way yarkii kuma yaqaan waa gacan galay ama baasaboorka Sweden loogu soo gabado oo Sweden hala hadasho ninka la yiraahdo Maxamed Xuseen Rooble hatiraahdo maxaan ku raahdaa la shaqeey Deni ama hadduu baasaboorka Sweden tabadasho Ingiriis kale Ingiriisku ha yiraahdeen Deni la shaqee adigu cidii tiriba oo baasaboorkooda u wato ama Ingiriis ha ahaado ama Sweden inay amreenna waa u badan tahay inay ayuu ka dhaadhiciyeenna Axmedoobe Denina waa u badan tahay laakiin wiilkii marka loo fiirsado ficilkiisa marka la fiiriyo hadalkiisa ma ficilkiisa dhaqdhaqaaqiisa iyo safaradiisa marka ficilkiisa asagoo aamusan ficilkiisa aad tafsiir saarto oo fiiriso ficilka Kenya safarka Kenya iyo safarka Masar iyo safarka Sacuudiga iyo safarka Djibouti iyo safarka Imaaraad marka shanta isku darto waxa ku cadaanaysa wiilku inuu u gacan galay Deni iyo Axmedoobe labada daaroodka oo Puntland iyo Jubbaland waayahay maxaa ku xigay markaas waxa ku xigay caado kibir waxaan ii soo qoray ciwaankayga difaaca diinta dadka dalka waxaan ka soo horjeediyay caado kibir iyo daba dhilifiyo iyo gaalo marka hadda caado kibir baa idin tafsirin caado kibir maxaan kala jeedaa daba dhilifiyo maxaan kala jeedaa gaalo maxaan kala jeedaa gaalo waa taqaanaan taas tafsiir igama baahnidin
dabadhilfiyana waa taqaanaa anuu dabadhilfiya waxaan u aqaanaa qofka qadiyadda diinta iyo dadka shacabka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya dadka wixii ka soo horjeedo oo liddi ku ah dadka wata ama gaala ha ahaadeen ama carab ha ahaadeen oo muslina ama xataa Soomaali kale ha ahaadeen qofka ku raaca wax diinta lagu duminayo oo dalka lagu duminayo oo shacabka Soomaali lagu duminayo lagu dhibaateynayo qofkii aqbala oo lacag siista ama jaga siista anuu kaasaan dabadhilif u aqaana haddana waxa iigu calaamasan arrintaas aniga iigu calaamasan nimankan la criminal gangs anuu u bixiyay oo Al-Jazeera mar walba taga oo wada garanaysaan magacyadooda iyo qabiiladooda iyo waxay professionkooda wuxuu aad garanaysaan iyo waxay jawooyin soo qabteen caado kibir waa qiso ka dhacday maaqan 1940kii baan u malay meelahaas ilaa 1960kii meelahaas ama hadaarta 1920kii ilaa 1940kii dheh waxay ka dhacday nimankan loo Saleebaanka iyo Sacadka oo habar gidira laba lafood habar gidira laakiin hadda midaas magacan u soo qaatay caado kibirkaas marka warka ka baxaya idinka sheekay wixii dhex maray Saleebaan iyo Sacad iyo caado kibir waxay ku baxday laakiin hadda erayga caado kibir waxaan u soo qaatay waa nimanka siyaasiyiinta oo Soomaalida ah oo shacabkii Soomaaliyeed kula dhaqmahaya caado kibir wax la yiraahdo caado kibir ayna wada dhaqmahayaan dhaqan la yiraahdo caado kibir ayayna wada dhaqmahayaan oo mahmaada taas ayaan kala jeeday siyaasiyiinta Soomaalida ayaan u mahmaahaya mar labaadna mahmaada waa adeegsanayaa Saleebaanka laftigiisa iyo wagardhac oo maalin kasta ku dirra meel la yiraahdo shalay la sheegay inay ku dirreen dacdheer iyo meesha la yiraahdo iyo muxuu ahaa meelahaas dhabad iyo u dhaxaysa ma taqaan cadaado iyo gaxan dhaale waan u mahmaahay niman la yiraahdo xawaale oo bariga dega Beledweyne iyo kuwa kale ayaguna Soomaali la isku dardaray ah oo gugundhabe iyo gaal jecel iyo niman dir ah iyo reew xasan kalweyne aduu qabiilooyin la isku dardaray oo Soomaali ah oo dega galbeedka Beledweyne ayaa ayaguna waxay ku dirreen meel la yiraahdo kabxanley shalay ayaguna meel beeraa ku dirreen laba wiil oo reer diiniya waxa gaari kala degay ayaan la cayr dhowr bari koor laba bari koor waan shalay ka hadlayay oo dilay aana qabiil u dilay marka kabxanleyna waa caado kibir labada wiil oo reer diiniya ayaan la cayr gaari kala degoo dilayna iyo aanadii ka horeysay ay isleeynayeen waayahana waa caado kibir marka caado kibir oo Saleebaan iyo Sacad diray 100 sano ka hor meelahaas ama 80 sano ka hor oo hadda Soomaalida caado kibirkii dagaalka ay sii wado wali qabiilka u dirireysano ayaduna waan kala jeedaa laakiin caaw waxa igu xoog badan oo mahamaada caado kibirka u soo qaatay nimanka nagu ciyaaraya sidii kubadii annaga shacabka oo caado kibir nagu dhaqmahay macnaha caado kibir waxaan ka wadaa waxayna leeyihiin qarankii baan dhisaynaa qaran Soomaaliyeed xooglaan soo celinaynaa al-shabaab baan tirtiraynaa shacabkan qoryaha ka ururaynaa qabiilooyinkan heshiisiinaynaa wixii xaqan u kala qaadaynaa gaaladan xalna ka saaraynaa corruptionka iyo musuqmaasuqan la diriraynaa cunaqabataynta hubkan qaadaynaa maxkamaddii saraan ma taqaana ayaan dhisaynaa lacagtii shilin Soomaaligan soo daabacaynaa wadanka wadan baan ka dhigaynaa haddana waa nimanka noo sheegahaya xarar dheeran xoreynaa al-shabaab ka xoreynaa haddana inta isqilaafaan ciidankii qaarna ku soo celinaya dhul Soomaaliyeed qaarna ku soo celinaya gaalkacyo waa kuwa ninkii loo xil saaray inuu wadanka doorasho gaarsiiyo criminal gangiski ku biiray oo u gacan galay Axmed mataqaan Madoobe iyo Deni u gacan galay oo dhahaya maxaan sameeyaa markaas Axmedow inta warqad u qoro wuxuu leeyahay saan samee Deni inta warqad u qoro leeyahay saan samee labadana daaroodka waa isla ognahay qoladanadan Puntland iyo Jubbaland waa isla ognahay waa hadaad rabto
inaan Kenya iyo ka iibino iyo Imaaraadka ila Kenya iyo Imaaraadna ani Saciidini baa wakiil uga ah Soomaaliya Kenyana waxa wakiil uga ah Soomaaliya aniga Axmed Madoobe marka hadaa rabto adiga siyaasadda mustaqbal ka leedahay madaxweynaha Soomaaliya rabtid annaga ma taqaan ka gadayne oo jawaasiis u ahe ana amarkana ku shaqee waxa weeye marka maamul goboleedyada iyo Rooble iyo wasiiradiisa iyo kuwan xildhibaanada oo aqalka sare iyo kuwa hoose oo aqalka hoose iyo farmaajo waayeel oo madaxweyne u ah intuba waa nagu ciyaarayaan markaas waxay nagu ciyaarayaan caado kibir macnaha caado kibir waxaan ka wadaa waxaan rabbi ogolay oo rasuul ogolay oo diinta islaamka ogolay oo aqligu ogolay oo shacabku ogolay oo dalku ogolay oo qof damiir la usan ogolayn ayay maalba inta 24 saac sameeyaan ayay haddana waxay noo sheegayaan waxa ficilkooda ah hadal cagsigiisa oo been ah oo qayaxan ayay noo sheegayaan marka waa caado kibir weey sababtu qof og wuxuu sheegay inay xaraan tahay inay been tahay inay ma taqaana ay tahay diin dumis iyo dal dumis iyo qaran dumis iyo shacab gumaadid haddii noo sheegaya inuu saxan yahay waa caado kibir weey macnaha waxa weeye caado kibir oo qof jaahil ah oo haddana aan aqligu ku filnayn haddana safiiha oo fudud meel uu ku fiican yahay la arkin wax qabsanayana oo gacanta qabanaya oo ka joog dhahaya waxaan aan lahayn deedna haddana saas oo tahay asagii saas ahaa loogu hiilinayo jahligii loogu hiilinayo fudaydkii iyo ma taqaan safiihnimadii loogu hiilinayo ahmaqnimadii iyo doqonimadii loogu hiilinayo oo asagii la difaacayo inta marka la isku dar ayaa waxa la yiraahdaa caado kibir markaan idin macneeyo waxa dhex maray Saleebaan iyo Saacad 100 sano ka hor iyo waxay ku dirireen iyo magaca caado kibir marka wixii loogu bixiyay markaas hadalka nuxurkiisu idin deeqaya haddaba waxaan leeyahay markaad leedihiin ciidanka meesha ka soo baxa askartana ku oranaysaan markay dhahaan maxaa looga soo baxay soonay u soconay meesha la yiraahdo xarar dheere aad u sheegaysaan beenta qayaxan madaxweynaha amray oo yiraahdo laga soo baxo ama baramisarka yiraahdo laga soo baxo ama wasiir gaashaandhiga yiraahdo laga soo baxo ama general Oduwaaba yiraahdo laga soo baxo ama general Biixi ba yiraahdo laga soo baxo waxa asu waxba ka jirin oo huuha ah waxa isbedelay ujeedadan u aadnay meesha la yiraahdo xarar dheere ayaa isbedeshay marka ciidanku inuu meesha ka soo baxaa askariga marka inta loo sheego uu iska soo baxaya wuxuu leeyahay madaxweynaha iyo baramisarka iyo wasiir gaashaandhiga iyo taliyaha xoog iyo abaandulaha xoog iyo madaxweyne qoorqoor galmudug iyo dani oo madaxweynaha Puntlandia iyo janamadan iyo wasiiradan wax weyn bay og yihiin adiga askariga aadan ogeyn waayo marka annaga shacabka askar ma nihine shacabkii dalka iska lahaa diintan iska lahaa oo ma taqaana dadkan laynayo la gumaadayo ama dhalay ama la dhashay baan nahay maxaad noo sheegaysaan maxaa isbedelay objective-ka isbedelay muxuu yahay the objective is change muxuu yahay objective isbedelay objective-ka isbedelay hadafka iyo goolka iyo ujeedada isbedeshay oo askarta u sheegteen oo ka soo bax dhahdeen annaga idii ogo wax weyn ba isbedel muxuu yahay annaga shacabka noo sheeg ilaa annaga nama xukuntaan askara xukuntaan maniina maxay tahay sababkaad camaara uga soo baxdeen oo u aadi weedeen xarar dheere al-shabaabna hadda ay u haystaan camaara iyo ma taqaana meesha la bacaad weyn burtinle iyo gaalkacyo iyo dhuusabran u qabsan rabaan mar dhow maxay tahay maxaa isbedelay noo sheega oon ka ahayn adinka munaafaqadiina iyo khilaafka dhexdiina ah iyo siyaas xumadiina iyo dabadhilfinimadiina iyo caad qaatinimadiina iyo fadlan ku shubadiina iyo Itoobiya ma taqaana Imaaraadka iyo ma taqaana Kenya ina u shaqeynaysaan nimanka xalna fadhiyo oo ma taqaana reer galbeedka iyo waxay cagaha ku jiidanayeen oo Carabta iyo Afrikaanka madow inaad u shaqeynaysaan u kala dhuumanaysaan midba mid faylaha goynayo intaas waxay mid noo sheegi kartaan
maya intaas waxay nooma sheegi kartaan waa yahay intaa waa caado kibir markaas ka soo baxdeen ciidan ka soo saarteen oo dhusmareeb gaal ka soo celiseen maxaa keenay in ay ku diriraan Saleebaan iyo Wagardhac shalay ama daraad meesha la yiraahdo gaxan dhaale iyo meesha la yiraahdo inta u dhaxaysa nabad iyo cadaalad maxaa keenay laba wiil oo saqiir ah oo football players ah 18 jir ah in gaari lagala doo reedin oo ayaan la cirdilaan maxaa keenay kablax mataqan kabxanley dad beera falnayo in la weeraro laayo maxaa keenay oo hiiraan ah maxaa keenay maxaa ilaa hiiraan ilaa mataqan balanbal iyo guracel dhexdooda ilaa cadaadiya dhabad dhexdooda maxaa qabiilooyinkii hal mar maxaa isku kiciyay oo qabiilba qabiil ku diray waxaa ku diray qorshihii aad uga soo baxdeen meesha oo ciidanka looga saaray mataqaanaa meesha la dhaho Camaara oo loogu soo celiyay Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo al-shabaabna ay qabsadeen ilaa Bacadweyn ilaa Camaara waa silsilad isku xiran weyn waa isku hal ujeedo waa isku hal hadaf weey waa isku hal gool weey adunku ama isku raacsanaada kulligiin intiina siyaasiyiina ama laba qayb u kala jaba ama qaybkiina al-shabaab hala shaqeeyo qaybkiina qolada xalna fadhido reer galbeedka hala shaqeeyo qaarkiina qabiilooyinka hala shaqeeyo adinku sarabtaan u qaybsanaada annaga waxba nooguma jiraan qaybsankiina adinkaana soo raashaday oo yiri mataqaanaa madaxweyne iyo prime minister iyo wasiirro iyo xildhibaana idin noqonayna siyaasaddan idin matalayna diinta iyo dalka iyo dadkan difaacayna aawa diinta iyo dalka iyo dadkan difaacaysan marka magaceeda noo sheeg saddex maxaa keenay maanta ina muuse nuur oo Puntland ah gobernatoraha Gaalkacyo iyo wasiirka amniga Galmudug Axmed Fiqi inay 10 baabuur isku wareejiyaan oo yiraahdaan waxaan la direynaa al-shabaab anoo Gaalkacyo waqooyiga matala dhinaca Puntland iyo anoo matala koonfurta xaafadda Baraxley hadana Axmed Fiqi labadanada la direynaa aaway qorqor aaway adiga Axmed Fiqi ah janankii ahaa aqalka sare aaway Cabdi Qaydiid aaway ninkii jananka laga rifo ahaa Saadiq John aaway adiga ina Muuse Nuura aaway Siciidani aaway muxuu ka doonay Kenya muxuu imaaraadka ka doonay muxuu la wareegaya ilaa Puntland uu ka yahay mataqaana gobernatore ama madaxweyne dhexe waa kana Bacadweyn la haysto oo Puntland la qabsan rabo Gaalkacyo la qabsan rabe muxuu u wareegaya imaaraad iyo mataqaana iyo Kenyaati haduu majaajuus ahayn labadiina kumaadina jirmiya wixii ciidanka meesha ka soo saaray oo waxay ahaayeen General Biixi iyo mataqaan General Cabdi Qaydiid iyo ninka la yiraahdo magaciisa Saadiq John ma saddexaas ciidan ka soo saaray meesha ilaa wadinka adinku hadda al-shabaab la direynaa mise labadiina soo saaray oo ciidanka soo bixiyay oo haddana al-shabaabkiiba hadda dhulkiinii qabsan rabo hadda markii horena siyaasad bad uga soo saarteen haddana markii Gaalkacyo leeyahay ka qabsan lahaa iyo mataqaan Burtinle ayaa isku biirteen oo tiraahdeen aan difaacano oo markii hore waxaad u arkayseen in adinka ay dan idinkugu jirto iyo siyaasadihiina in xardheer la qabsado oo al-shabaab laga qabsado labadiinaan adiga Fiqi adiga ina Muuse Nuur markii dambe isbedesheen waxaad aragteen inay dantu idinkugu jirto inaad ka soo baxdaan haddana markii la idinku biya keenay oo al-shabaab idinka hari waayeen waxa idinka tusay haddana inaad difaacataan Gaalkacyo iyo Burtinle iyo Bacadweyn mise waa taas cagsigeede qolada ka shaqeynaysay markii hore inay meesha soo qabsadaan
burti meesha la xarar dheere waxay ahaayeen generaal biixi iyo generaal cabdi qaydiid iyo ninka la yiraahdo saadiq john ayagiiba isbedelay marka oo haddii hadafkoodu ahaa inay xarar dheere qabsadaan waxay ayaga siyaasadooda ka dhex arkeen hadeertaan inay isaga baxaan al-shabaabna soo dabagalo dhuusamareeb iyo gaalkacyo qabsado iyo burtile oo saddexaas nin oo meesha ka maqan hadda sawirkiina maanta ayaa arrinta ka dambaysa waqtigaa noo sheegin annaga shacabka waqtigaa wuxuu noo sheegayaa raggiinii shanta ahaa oo nimankaa la dirirahayo nagu lahaa waxaan soo taabanaynaa xarar dheere haddana ciidanka ka soo saaray inta arrintaas wadatay iyo inaad kulligiin wada wadateen iyo in adinka qayb idinka mida wadatay waqtigaa noo sheegin suu rooblaba waqtigu noo baray inuu hadda ku biiray axmedoobe iyo deni inuu ku biiray oo shaqadii loo xilsaartay uu ka tegey oo criminal gangiska uu ku biiray oo wadankii hadda uu rabo meeshay la rabeen qoladii criminal gangiska oo aljasiiro deganaa oo axmedoobiya ka tirsaneen ninka laado siciid deni iyo axmedoobe ka tirsanaayeen meeshay dalka la rabeen iyo kenya iyo imaaraadka iyo wixii ka dambeeyey oo ayagoo dhan xukumay halkaasoo hadda ninkaasu dalka u wado hadduu yahay maxamed xuseen roble ayaa marka iyo adinka intiina raacsan ninkaas iyo inta ka soo horjeeda waqtigaa noo sheegin maxamed cabdulaahi farmaajo ciidanka markii la dirayay asagu inuu diray markii laga soo saaray inuu ka soo saaray markii la dirayay inuus asagu diray ee baramisarku diray markii laga soo saaray inuus waxba ka ogeyn raggan hadda ciidanka soo saaray oo janamada u badan iyo gobernatorayaasha asaga wax intii raacsan asaga farmaajo intii ka soo horjeeda kuwa asaga raacsan ciidanka inay ka soo saareen meesha farmaajo in ciidanka meesha laga saaray inay diidanayeen oo ka soo horjeedeen waxaasoo dhan waqtigaa noo sheegaya laakiin anugu kulligood oo laysku daray waxaan u aragnaa inay fashilmeen inay iskhilaafeen inay kala tageen meeshii la rabay in la qabto mataqaan xardheer laga qabto al-shabaabna inuu hadda al-shabaab gaalkacyo dhuusamareeb iyo burtile inuu qabsan rabo bacad weyn uguba haystaa iyo camaara sida dacwo sheegaya waayo marka cidda qarsoon oo la aqoonin oo daaha gadaashiisa ciidankana ka soo saartay meesha qabiilooyinkii soomaaliyana qabiilba qabiilka dariska ah inuu dagaalamo oo laayo ku amartay ciddaas waayo marka bal hadda aayaddan qur-aanka dhegeysta shacabka soomaaliyeed qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم وإن يريدوا خيانتك أديك النبي محمد دير أن يكون قيامان فقد خانوا الله من قبل إله بهذا كهر قيامان وحلقها الله يا وأمركي دجالكي بدر لقبتي نبي محمد أديركيس عباس عبد المطلب لقبتي كوح سو ويل وياهي أو إني مسلمين بيشاغانا يعني وحين لسعودين كفار قريش بين السعودين أو لغولاد الري ماشى الله دوها مجا عاده لغولاد الري بدر لغولاد الري وحالي يري مركا waxaa iska bixsan isfurasho nin walba maal ha isku furto ayagu waxa dhan muslim baan nahay waana la soo qasbay quraysh baa tiri nin kasta waa inuu dagaalka galaa laakiin annagu muslimiin baan ahayn aniga cabaas waa ila socotay nin maxamedow waa isogeen inaan muslim ahaa meesha maslaxadayda adduun baan u joogay raggan kale waa ila mid kuwaasa ilaahay ka hadlahaya 13 sano ayaa nebigu maka kula hadlahayay maxay u soo haajiri waayeen oo madiina u imaan waayeen wuxuu yidhi hadday hadda marka adiga been kuu sheegahayaan oo isa iimaankay sheeganayaan iyo iimaanku usa runba ahaynba oo isa muslimiinba oo rabaan inay maalka ku badbaadsadaan isfurashada ay leeyihiin anaga ayaa waxba nala ka qaadin hanolo daaya maalka ila muslim baan maxaa isfurashada nala ka qaadaya ilaahay bay hadda ka hor qiyaameen oo ayaga diiday inay soo haajiraan waxaan ka wada aayada quraanka
waxaad ogtiin madaxweynaha iyo prime ministerka iyo xildhibaanada waa la dhaariyaa Soomaha markii la doorto kitaab ay gacanta saaraan Soomaha ninka maxkamadaha ugu sareeya gudoomiyaha maxkamadaha ayaa inta baarlamaanka inuu dhaariyaa Soomaha madaxweynihii iyo prime ministerkii iyo xildhibaanadii maxay ku dhaartaan diinta iyo dalka iyo dadka inay difaaciyaan bay ku dhaartaan Soomaha oo ay daacad u noqonayaan oo ay waxba qiyaameen oo ma taqaana ay sadad muslim leeyeen oo ay hanti muslim xadeen oo ay san jaajuus noqonayno cadowga ma taqaan muslimka iyo diinta iyo dalka iyo dadka Soomaali u jaajuuseen kitaab ay mareen Soomaha wakaas kitaabkaasaan kala jeedaa hadaad kitaab gacanta saarto intii ilaahay uu ka xaaraantinimeeyeen aad ku kacdo macnaheedu ilaahay baad khiyaantay way oo dhaar beena ayaad kitaabkiisa ku dhaaratay intaadan marka annaga shacabkaana khiyaamin hadaad madaxweyne tahay hadaad prime minister tahay hadaad gudoomiye labada aqal tahay kan sariya kan hoose hadaad xildhibaan caadiye tahay hadaad wasiir tahay hadaad janan tahay annaga shacabka intaadan khiyaamin ka hor ayaad ilaahay khiyaantay oo kitaabkiisa aad martay ayaad beenisay kitaabka aad martay waxaad ka been sheegtay dhaartaadii markaad dhaartii ka been sheegtana ilaahigii ku abuurtay ayaad ku been abuurtay ood ku gaftay oo dambi weyn ka gashay marka ilaahay baa kugu dhagan mar hadaad marka ilaahay been u sheegtay anaga inaad been oo sheegtay dib weyn maaha macna caano oo ka batid qof kitaabkii ilaahay u marayba ka been sheegay inuu shacab Soomaali been u sheego oo khiyaamo ama dad shacab Soomaaliyeed intuu lacag qaar u dhiibo dhaha qaarka kala laaya caano uma ka banayo ayadaasna halkaasaan kala jeedaa ilaahay waa idin ogyahay mid kasta oo dhaar mara oo mas'uul ah oo inuu mas'uuliyadda ka soo baxaya dhaar inta ku mara kitaabka quraanka gacanta saara haddana dhaarti ka baxa ilaahay adduunyada intaan aakhira la gaarin adduunyada ilaahay waa ku cinqaabahaya aakhirana qiyaamihi iyo xisaab weyn baa meesha u taala hadda ka hor ma xasuusta inaan xidigla ahay inaan laba xidigla ahay dhowr askari ayaa waxaday xeradii wax ka xadeen deedna mid gaashaana dhaxa taliye guutaaba wuxuu yiri Cabdirashiidow askartaas kaxe u soo weyseysay waa soo weyseystaan markay soo weyseystaan iikan kitaabaan marsiinaya alaab ay xerada ka xadeen oo lacag badan ah way soo gateen marka kitaabaan marinaya waxaan ku wari taliye nimankan kitaabkaas waa u baaba'ayaane aniga waxay la quman si kale inaad u xukunto laakiin kitaab ka diisi dadkan waa muslim haday kitaab beena oo dhaar beena maraan oo kitaab ilaahay ay ku dhaar ku maraan been ah aakhiri adduun waa halaagsamayaan marka aniga hadda intaad ii sheegtay alaabta noocaas iyo lacagta qiyaasta noocaas wax kitaab lagu mariyo way macnaha way ka yar yihiin nimanku waa muslim waana Soomaali ka dah warkii waa isku afgaran weyn waa iga diid amar bay noqoto markaas waa u yeeray waxaan ku soo weysaysta kitaab aadna maraysaan ninkii kitaabka isku marana adduun iyo aakhiro waa halaagsamaya haddaba dhib ma leh iska sheeg nin walba intii kaaga soo hagaagtay alaabta xaday intii lacag kaaga soo hagaagtay taas ayaa lagu qaataa intii in lagu xukumo oo dhowr sano xabsi aad soo martid ama dhowr bilood waxaa kaaga daran inaad kitaab been martid oo ilaahay adduun iyo aakhiro ku cadaabo waxay yiraahdeen waa maraynaa kitaabka weysayna laba waa weysaysteen mid waa diiday macnaha inuu si sax u weysaysto diiday asagoo buudkiisa qaba intuu wajiga gacmo ku firdhiyay ma taqaana iyo faraha biyo ku firdhiyay ayuu sidaan ku weysa qaasida iige waxaan goor war si fiican u weysayso oo kamaha buudka bixi oo weysayso sida caad loo weysan jir u weysayso marka tukanayso waa diiday intuu wajiga gacmo biyo iska gagashaday oo kabi buudkaana kor ka mariyo ardeen nagee meesha nagee waa gartay waa u geeyay kitaabka waa mareen kii aan weysaysan oo weysada iga diidahayay dhowr bari kadib baa hawlgal loo qaaday baabuurkii sii wada intaan meeshiiba la gaarin ayaa la gudoomay waan dhintayna markuu kitaabka maray marka la qaaday iyo markuu dhimanay waxba ma dhaxeeyaan marka kitaab quraan ah oo been ah qofkii mar ah qaabka ninkaas oo kale saas oo kale ayaa ku dhacaysa waxa marka annaga meesha noo jooga
oo dalkaad aragteen jaanjaamay oo dalka aragtay hore u dhaqaaqi laayahay wax ilaahay ku dhagan yahay oo ilaahay dambi ka galay oo kitaab beena wada maray ayaa ku badan waxa mas'uulka noo noqonay qof ilaahay ku dhagan yahay muxuu ku qabanay oo ilaahay dambi ka galay oo kitaabkiisii ma taqaana been ka sheegay waayahay waxa la soo gaaray caado kibir iyo Saleebaan iyo Sacad wixii dhex maray wiil yar oo reemiyi ah oo Sacad ah oo qeyd qaba Saleebaan wiil yar oo Saleebaan ah oo qeyd qaba oo reemiyi ah ayaa waxa qaraacay qeydkiina ka furtay qeydkiina jaxjaxay wiil yar oo Sacad adu 1920 iska ilaa 40 ama 40 ilaa 60 iska waa meelahaas adu 100 sano 8 sano duduna waa ku riday qeydkii markuu jaxjaxay Sacad waa yimid wuxuu yiri qeyd cusubaan wadnaa raalinaha la ka ahaado Saleebaan waxa dheer adinka la idin waxaas anagu qeyd cusub warta dooni meeno waa kow mid karkaran oo dudun laga soo bixiyay dooni meeno maxaa rabtaan sababkii wiilka yarka wiilka u dilay qeydkan uga qaatay qeydka u jaxjaxay oo u galiyay dudunta ayaan rabnaa waxa la yiri Sacad waxa dheer waxaas waa dhaceen waa dhaceen Saleebaano walaalayaal waxaas waa dhaceen wax aru yar samaysay way oo qaangaarin wax rag weyn ku wada hadla ma Saleebaan waa la qancin way dil buu bilaabay inuu Sacad laayo dagaalkaas muddo badan buu socday dadku 45 50 sano 20 sano 12 sano waxay u bixiyeen marka reemudug caado kibir macnaha waxa la wada Saleebaanku dhaqankiisaba kibriya muxuu yahay iyo caadadiisaba kibir iska iyo sanka inay taagaanba oo wax allaale iyo wixii ma taqaan loola yimaado ay ula yimaadaan sheekaliirada caado kibir annagoo daan Saleebaan ahay caadadnadu waa kibirba sanka inaan cirka u taagno oo wax alla waxa rabno ma xalaal ba ma xaraam ba ma sax ba ma khalad ba ana fiirnin dagaalkaas reemudug waxa u yaqaanaan marka caado kibir oo dhex maray Saleebaan iyo Sacad markay dhinteen 45 sano la dagaalamayay oo dhinteen dad 100 sano rag 100 ku dhow ama 50 nin dhinteen oo qeyd u dhinteen la jaxjaxay maxay ku dambeysay in la heshiyo oo hadii la heshiyo markay 100 dhinteen markii qeyd taagneed kaliya qeyd cusub ah la soo gaday kii hore duub baa Saleebaanku may qaataan tiiba hadda waxay ka taagan tahay 82 ilaa 21 wagaraac iyo Saleebaan dagaalka Saleebaan iyo wagaraac wuxuu bilowday 1982 ayuu wuxuu ka bilowday dhabad iyo intuu dhaxaysa cadaado ilaa saacadan 21 buu socdaa macnaheedu 40 sano ayaa hadda ama sanad ka dhiman yahay ama 40 sano la joogaaba ayay dagaalamayaan soo caado kibir ma oo marka la soo noqotay kuwan balanbal degan oo reer diiniga iyo cayrka ayaa ayaguna weligood dagaalamahayay ama 100 sano ama 200 sano ama 50 sano ama 40 sano ama 30 sano ayaguna soo caado kibir ma macna kibir anu waa kibray ilaah baanan ma taqaana aanan ka xishoonin ilaah baana ka baqaynin ilaah baan amarkiisa qaadanayn rasuul baana sunnadiisa qaadanayn rasuul baana aan ma taqaana raadkiisa qaadayn wixii aniga qarowgayga iyo riyadayda oo ku riyoodo ayaan sameynaya hadana reediniga balanbal iyo hadana cayrka ma taqaana guraceel macnaha waa waxa rabnaa sameynayna oo caadadnada waxa taa kibir iyo waxa rabnaa sameeyno oo diin la tixgelin oo rabbi la tixgelin oo rasuul la tixgelin oo ehel la tixgelin oo dhalasho la tixgelin oo muslimo la tixgelin oo Soomaaliyeed la tixgelin oo daris la tixgelin oo dhalinyaro la tixgelin oo abtiya adeer iyo sodog iyo seedi iyo xidid iyo saaxiib aan la tixgelin kabxan leeyna waa la mid qoladan bariga degta beledweyno xawaadle iyo kuwan galbeedka dago oo Soomaaliya isku dardaray ayaguna waa la mid waa isku ilmaabti ilmo eediyeen ma habreed maalban saas isku qowracayaan ayaduna waa caado kibir weyn marka qolada siyaasiyiintana waxaan leeyahay caado kibirka daaya oo shacabka Soomaaliyeed ku ciyaaraysan qoladina reer miyiga oo Soomaalidana oo Saleebaan iyo wagaraac ugu horeeyaan oo Saleebaanku caado kibir iska leeyahay mahmadan asaga ku baxdayba Saleebaan oo caado kibir 20 ka saaray meesha caado kibirka jooji wagardhaci adinkana caado kibir idinka saaray meesha 20 wagardhaci caado kibir jooji adiguna
qoladiinaan reer diini oo degan balanbalow caado kibir idinka saara maysa 2021 iska joojiya caado kibirka qoladiinaan ayaan la cayr oo degan Guraceelow caado kibir 2021 waxba idin taray maysa idinkana saara maysa iska daaya qoladiinaan xawaadle oo degan bariga Hiiraan ama Beledweyne iyo kuwiinaan galbeedka degan oo Soomaaliya isku dardaraya adinkana caado kibir 2021 idinka saara maysa waxna idinku taray maysa iska daaya god iyo aakhira idin dambaysa xisaab ilaahay baa idin dambaysa markaad ilaahay qiyaamo hor taagan tihiinna waxa adduunka hadda maanta lagu hayo reer hebel iyo mataqaan faankan iyo tooqan beenka iyo caado kibirkan xagga dambi weyn bay noqonaysaa miisaanka lagu saarayo walaa qabiil baan meesha ka jirin walaa lacag la isku furtaan ka jirin walaa laaluush baan ka jirin walaa xoog iyo mataqaan dagaal baan ka jirin meesha malaa'ig baa joogta ilaahay mataqaana uu xoog u dhameeyay naaru jahannamana waa taala waa diyaar amarka ilaahay bay ku xiranta qofkii naar u soo baxda miisaankiisu malaa'igta lagu amraya naarta hore looga tuuraya markaasna caado kibir waxba kugu taray mayso reer hebel baan nal dhahan waxba kugu taray mayso tooq iyo faan been iyo turugna waxba kugu taray mayso waxa ku anfacaya iimaan saxiixa iyo amal saalixa taasna kuma jirto qof muslim iska socda oo beertiisa falay in la dilo haday hiiraan tahay ka baxan leh caruur football u socoto dhowr tuma jira in lagu qowraco balanbal iyo mataqaan Guraceel dhexdood nin geel la joogto riimiye dhabad iyo mataqaan caado dhexdood geelisa la socdo in la qowraco waa waxa ilaahay ku sheegay naar inuu gelinayo qofkii qof muslim oo mu'min ah oo iska socdo xaq darro ku dila naaru jahannamo baa ilaahay ku sheegay inuu gelinayo kuwa daba dhilfiyada ah oo lacagta ka soo qaadahaya nimanka xalna fadhiya oo ajaanibta ah deedna laba qabiil oo Soomaali inta isugu dhiib islaaya dhahaya ilaahay waa idin jeeda waa arkaya waa og yahay markaad dhimataan qabri gashaan oo qiyaamahana la yimaado markaas gaaladii lacagtaad ka soo qaadeen ama muslimka lacagta ka soo qaadeen xalna fadhiyay ama imaaraad ha ahaado ama sacuudi ama masaari ama kenyaati ha ahaado markaas idinka saari mayso shacabka isku leynaysaan oo lacagaha ka soo qaadaysaan oo aad u dejinaysaan maalin hebel bil hebel sanad hebel xaalad hebel oo aad leedihiin ciidanka ha laga soo saaro camaara ha lagu soo celiyo dhuusamreeb iyo gaalkacyo waa kow waa shaqada kuwa shaqada labaadna maxay tahay in qabiilba qabiilka dariska ah la isku diro inta lacag la siiyo midkood kan kala lah in la yiraahdo saddex inaan dalku doorasho aadin dadka la iska daba wareejiyo maalin baan inta la soo fariistay idaacada war been la daldalo iyo munaafaqad nimanka xalna joogana loo shaqeeyo oo ajaanibta ah waraaqahan ayuu soo qoraan telefoonkana soo diraan lacagtana soo dhiibaan annaga shacabkaana dhaqan la yiraahdo caado kibirna loo yimaado iyo been qayaxan iyo munaafaqad iyo ciidanka dhowr bari kadib wuxuu qabanayaa mataqaan xarar dheere haddana ayaga ay xarar dheerana haystaan camaarana haystaan bacaadweyn haystaan gaalkacyo burtinle iyo dhuusamareebna inay qabsadaan qarka u saaran قال تعالى صدح لي آية يقول دم بيسوي فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فلما عتوا markay ku xad gudbeen markay ku madax adeegan عما نهوا عنه shaygii laga reebay wixii laga reebay xaqiisa qulna lahum yuhud waxaan ku niriba ilaahay yiri kuunu waxaad aataan qiradatan danyeer khaasiin duloobay oo dulaysan oo duf ku baxday waxaa lagu yiri maalinka sabtida ha isku ugaaranina meel xeeb ay deganaayeen
kalluun dabatay ahaayeen waxaa la yidhi sabtida maadaama ciiddiina ay tahay annaga muslimka ah soo jimco nooma ahan ciidanada jimcaha soo maaha asbuuca jimcaha shaqada waa ka nasanaa soo maaha yuhuud waxaa ilaahay yidhi 7 beri mid doorta markaase waxay dhaheen waxaan dooranay sabtida ma sabtidaa doorateen waayah maalinkaas marka waxaa lama jilaaban karo iska nasta waa diideenoo marka waa jilaabteen halkaas aayaddu ka hadlaysa aayadaha ka horeysa ku xiranta markay diideen ilaahay marka wuxuu yiri noqda daanyeero duf ku baxday noqda qofkii diida ama yuhuud ha ahaado ama nasaara ha ahaado ama muslim ha ahaado qofkii diida amar ilaahay oo wuxuu rabbi faray diida inuu sameeyo wixii ilaahay ka reebana ka hari waayo ilaahay daanyeer iyo doofaar inuu ka dhigo waxba lama ah waa u sahlanta nimankiina marka siyaasiyiinta ah oo u maleeyay siyaasaddu inay tahay in inta kitaab la maro kitaabka been laga sheego kadibna jaajuusnimo gaalo iyo ajaanib diinta iyo dalka iyo dadkaba wax sharca maahane aan wax khayra weligoodna u qaban una soo wadin haddana u samaynaynin inaad diinta iyo dalka dad ka gaataan inta xoogaa shilimaad ka qaataan jawaasiisna u noqotaan kitaabka ilaahayna aad ka been sheegtaan ilaahay waa idiin jeedaa inuu doofaar iyo daanyeer idinka dhigan waxba lama ah hadduu doofaar iyo daanyeer usa idinka dhiginna dhibaatooyin waaweyn oo idinka bixi karin oo cara ilaahay ah ayaa idinku dhacaysa ama cudur ha noqoto ama gablan iyo wiil la'aan ha noqoto iyo gabar la'aan ama mataqaanaa waali ha noqoto balaayo iyo masiibooyinka ilaahay asagaa yaqaan mataqaan wuxuu ciduu u caroodo ku ridaayo waxaadina mahadin adduun iyo aakharab ayaa idinku dhici doona hadduuba ilaahay faraha idinka qaada adduunka sakiin daayo aakharo bay kaaga horeysaa oo middan hadda la joogo ka dhib badan ilaa adduunka xisaab ma taal adduunka waxaa taala inaad camal falato oo camal suuban oo wanaagsan inaad camal falato haddaad diido aakhare markaad tagta camal suubanna lagaama rabo wixii aad hore u shaqaysataa miisaanka lagu saarin wixii kuu soo baxa waxay kuu gooyaan ama janno ama naar mid baad aadaysaa guri saddexaad la aadana male ama jannaad aadin haddii camalkaagu fiicnaado ama naaru jahannamad aadin haddii camalkaagu xumaado marka adoon qofna u samayn asxaan shacabka Soomaaliyeed asxaan u samayn qabiilkaagan asxaan u samayn waaridkaaga iyo caruurtaada iyo xaaskaagan asxaan u samayn aduu qabrigaagii ilaahay hor istaagiisa aakhiradaada iyo dhinacaaga asxaan u samayso adduunkan waa dhowr beri waxa la jooga dhowr beri kadibna qabriga ayaad iska xaadirinaysaa haddii ay kitaabka ka rur sheegaan oo ay daacad yihiin ilaahayga abuurtay daacad yihiin oo shacabka Soomaaliya daacad yihiin 30 sano dalka nagu saan ma ahaadeen 30 sano waxa dalka saan u galay waa gaalo iyo ajaanib kale oo gaaliye muslim isugu jira oo dalkan intaas oo dhibaato weligood ku sameyn jiray dad ay qorteen oo lisgaraysteen oo waxa ayagu ay rabaan oo baabiinta diinta ah oo baabiinta shacabka ah oo baabiinta Soomaaliya dalka la oran jiray ku caawiya oo shaqada u fuliya oo markay dhan diinta soo fuli diinta islaamka soo burburi markay dhahan lacagtan qaad inta ka qaad soo burburinaya diintii sida al-shabaab oo kale dadkaagii soo lacagtan qaado kuwa hadda ma taqaana ka baxanley iyo ma taqaana balanbal iyo gurceel dhexdooda iyo dhabad iyo caada dhexdooda lacagta shacabka isugu dhiibay reemiga oo soo la reebal dhahaya kuwa ciidanka ka soo saaraya ma taqaana camaaro oo ku soo celinaya dhulsamreeb gaalkacayo oo lacagta ka soo qaadanaya ajaanibta ama gaaladha ama muslim ha ahaadeen ama carabdha ama ajamida
ma mahadin doontaan. shacabkan Soomaaliyeed 30 sano hadda marsiinaysaan intiina gaalada u shaqaynaysa oo jawaasiista ah oo dabadhilifyada ah. ilaahayna xisaabtiisu meel bay taallaa. mar buu soo bixin doonaa, soo kormarin doonaa dad kitaabka ka run sheegaya, shacabka u run sheegaya, si shaqo mataqaanaa xalaal ah oo rabbi iyo rasuul ay mataqaanaa ay raalli ka yihiin dadka u qabta, gaalana dalka ka saara, kuwa muslimka ah oo gaalada ku lifaaqan carab iyo cajam waxay yihiinba ama afrikaanba ka saara dalka, kuwiina dabadhilifyada jawaasiistaana idinka qabta oo xabsi idinku ururiya. ilaahay markuu rabo inuu saas sameeyo, ilbiriqsi waa ka fududa, ilbiriqsi waa ka sahlanta. annagu marka waxaan ku samraynaa haddaan shacabkii Soomaaliyeed nahay, qadarta ilaahay iyo waaga ilaahay inta naga kiin qabto, naga kiin hor wareejiyo, uu dad diin iyo iimaan leh noo soo saaro oo diinta difaaca, oo dalka difaaca, oo shacabkan difaaca. inta la gaarayo ilaahay qadartiisa iyo qalinkiisa waa ku samraynaa oo waa ku dulqaadanaynaa. oo aayaddii hadalka aan ka bilaabay ayaa samirkaba sheegaysay Soomaa. dadkuna sidiisa bani aadamku kulligiis laba qaybood wey. muslimkana labadaas qaybood wey, Soomaaliduna labadaas qaybood wey, madaxweyne ilaa askari dablaa dadka u shaqeeya, magaca dowlad ku shaqeeya, labadaas qaybood wey. shacabka laftigiisuna labadaas qaybood wey. labada qaybood maxay tahay? qaala tacaala, bal aayaddan dhegeysa marka. فلما نسوا مما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما نسوا ما ذكروا به markay hilmaameen wixii lagu waaniyey oo lagu amray anjayna aladiina yanhawna cani suu, kuwii xumaanta reebay oo nahiyey, ilaahay wuxuu yidhi waan badbaadinay. oo aayaddu waxay daba socotaa arrintaa idiin sharaxay oo ahaa yuhuudi lagu yidhi sabtida ha ugaaranina. ayagiibaa waxay noqdeen kuwo ugaartay, waa kow, kuwaas doofaariya daanyeerha laga dhigay. kuwana waxay yidhaahdeen war ha ugaaranina, ilaahay wuu reebay. nabi muuse wuxuu nagu yidhi ilaahay wuxuu idinku yidhi sabti lama ugaaran karo, iska daaya. qolo saddexaadna kuwaasna ilaahay waa badbaadiyey. qoladii saddexaad waa iska aamuseen. kuwii sabtida ugaartana ha ugaaranina ma oran, kuwii ka celiyo yidhi ha ugaaranina ayayba waxay ku yidhahdeen maxaad ka rabtaan? kuwan ilaahay inuu cadaabuu rabaayo ma iska daysaan? kuwii wanaagga farayay bay waxay leeyihin aamusa sida annagoo kale. kuwaasna culummadu waxay yidhi ilaahay wuu ka aamusay. marka Soomaalidu ama dowlad ha u shaqayso ama shacab ha ahaato sida anigoo kale, waa u laba qaybood. falama nasuu maa dukruu bihi anjayna aladiina yanhawna cani suu, kuwaas waa kuwii reebay xumaanta soo maaha. saddexdii kooxood oo yuhuud, kuwii ugaartay xagga naga dhig, doofaariya daanyarha laga dhig. kuwii reebay xumaanta ilaahay waa badbaadiyey. kuwii marka ugaartay see loo galay? wa akhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin bimaa kaanuu yafsuquun baa ilahay yidhi. kuwii dulmiga falay oo amarkaygii diiday oo ugaarsaday malaygii, kalluunkii maalintii sabtida, cadaab xun ayaan ku qabtaa ilaahay yidhi. bimaa kaanuu yafsuquun, bisababi maa kaanuu, shay sababkiis, yafsuquun ay faasiqiin u noqdeen. marka dalka
iyo diinta iyo dadku waxay ku badbaadayaan aayadda qaybteeda hore inta soomaalida ah oo xumaha reeba oo wanaagga dadka fara oo rabbi iyo rasuul in la raaca raadkoodii ku taliya intaas ayaa diinta iyo dalka iyo dadku ku badbaadayaan inta laga gaaro ilaahay inuu soo kormariyo dadkaas wanaagga farahaya dalkana u dhiibo iyo mas-uuliyadda qoladan xumaanta wada wa akhadna alladina dalamuu bicadaabin ba'isin bima kaanuu yafsuquun kuwa haddana haysta wey ilaa 91 ilaa saacadan 2021 oo magaca shacabka Soomaaliyeed ku matala waxa la yiraahdaa maamulka goorta kuwaas ilaahay inta xaqo cadaab daran lagu qabto waxay sameeyeen 91 ilaa 2021 hadday yihiin siyaasiyiinta Soomaalida intaasaan sugaynaa marka ilaahay markuu saas u kala saaro oo kuwan hadda xumaanta sameeyay nagu horwareejiyo dadka wanaagga faray ilaahay uu soo bixiyo inta ka horeysa waan samraynaa ilaahay qadartiisa waa ku samraynaa inta wixii dhintay inta la gaarin aakharay kulli ku ogaan intii cimri ugu simana waan rajaynaa ilaahay inuu soo intaana dhimanin Soomaalidu qaybteeda wanaagsan oo wanaagga fara khayrkana ka shaqeeya rabbi iyo rasuul raadkoodii ku socday amarkoodii inay dalkan la wareegaan inta rabbi iyo rasuul ka soo horjeedo